السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نمو wanaagsan kusoo dhawaada xalqada 18aad ee taxanihiina kabasho. xalqadan waxaan kaga hadlaynaa xuduudaha goobta shaqada ama meesha aad ka shaqaynayso sida xuduudo loo sameystaa idin dhex yaala adiga iyo dadka aad la shaqayso, adiga iyo dadka ku shaqeeya, adiga iyo dadka aad u shaqayso. maadaama xalqadan labadii xalqadood ee ku horreeyay ee xuduuduhu aynu kasoo hadlaynay noocyada u kala qaybsamaan, faa'iidada ay caafimaadka dhimirkeena u leeyihiin, sababaha aynu ugu baahannahay iyo sida loo dhigto. caawa waxaynu ka hadlaynaa xuduudaha goobta shaqada ama meesha aad ka shaqaynayso xuduudo noocma ah ayaad u baahan tahay si aad si caafimaad qabto ugu shaqayso inaad dhigato ay ku cadaadaan oo dadka aad la shaqaynaysa ama u shaqaynaysa ama kuu shaqaynayaan ay uga warhayaan. intaynaan xilqada caawa bilaabin waxaan doonayaa inaan idinka tacsiyeeyo qof kastoo codkayga maqlaya geerida ku timi abwaankeenii Soomaaliyeed ee weynaa. Ilaahay baa weyne waaxidahe maanta uu hoyday ama caawa uu hoyday hoygiisii dhabta ahaa Hadraawi. qof kasta meesha uu joogo iyo goorta uu joogo ayaan ku tacsiyeynayaa. isagana waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa in sidii adduunka oo magaca iyo maqaamka iyo qiimaha iyo sharafta ugu lahaa in Ilaahay waaxidul axadkaahi u soo dhaweeyo oo malaa'igtu ay u galbiso oo gurigiisa aakhira uu u noqdo guri uu kii adduunka kaga raysto oo ku nasto oo ku nafiso. risaaladiisii iyo aqoontiisii iyo cabqarinimadiisii iyo aftahanimadiisii iyo aqoontii uu ummadda uga tegayna ay u shafeeco qaaday in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa. si gaara waxaan ugu tacsiyeynayaa bahda qalinleyda iyo qof kasta oo luuqadda af Soomaaligu qiimo ay ugu fadhido oo dhaqanku qiimo ugu fadhiyo oo ahaanshiyuhu qiimo ugu fadhiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala samir haynaga siiyo, inakana haynaga daba naxariisto xilliga aynu marno meeshii uu maray. haddaba sidaan sheegay caawa waxaynu ka hadlaynaa xuduudaha goobta shaqada iyo sida loo samaysto. aan isweydiino maxay horta muhiim u yihiin in xuduudoba aad lahaatid, especially markaad shaqaynaysid. goobta shaqadaadu waxay qayb ka tahay noloshaada iyo qaabka waxa weeyaan adduunka gudahaagu noqonayo ama u ekaanayo. adduunka gudaha iyo adduunka dibadda in badan baynu kasoo wada hadalnay. dareemaha iyo ficilka iyo habdhaqanku say isugu xidhan yihiin in badan baynu kasoo wada hadalnay. goobta shaqadaadu haddaba maadaamay tahay meeshii Ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa irsaaqay, adiguna dadaalka aad jireed iyo ka maskaxeed baad u sameynaysay sidaad waxweeyaan dhididkaaga oo caafimaad qaba oo xalaala aad u cuntid, waxaad ogaataa inay qayb weyn ka tahay noloshaada iyo say u ekaanayso, emotionskaaga iyo dareemadaada, ahaanshiyahaaga iyo naf araggaaga, kalsoonidaada. allahuma salli calaa sayidina Muxamed. adduunye araggaaga, noloshaad doonaysa qaabeynteeda iyo qaabka aad u soconayso intaba saameyn weyn bay ku leedahay oo qayb weyn bay ka tahay waxaad ka shaqayso iyo qaabka aad u shaqayso iyo dadkaad la shaqaysaaba si toosa iyo si dadbanba saameyn ayay kuugu leeyihiin. haddaba goobta shaqadaadu waxay kala daadin kartaa ama deganaashi u horseedi kartaa dhinacyo kala duwan oo noloshaada. isweydiina maxay muhiim u tahay inaynu xuduuda lahaano ama boundaries aan lahaano, aynu ku lahaano goobta shaqadeena, dadkayn la shaqayna, kuwa inoo shaqeeya, kuwaynu u shaqayno intaba. dhawaanahan waxyaabaha ugu faraha badan ee dadka laga daweeyo, ee dadku jiibiyada u tagaan, ee dadku xanuunada u qaadaan, ee dadku la daalaadhacayaan waxaa ka mid wax loo yaqaano burnout. burnout waxa weeyaan haddii maanta aad shamac haddaad shidid, shamacii wuu ifayaa markastoo iftiinka uu sii badiyo, saacadaha uu ifaya ay sii bataan, waa markastoo isaga dherarkiisii uu sii shiiqo, uu sii gubto, sababta isagaa isgubaya. sidaasi leeg haddii goobta aad ka shaqaysaa ay tahay goob stressful ah oo dhibaato jidheed iyo mid maskaxeed iyo mid caqliyeed kugu haysa oo shaqadaadu totaliba ama meeshaad ka shaqayso ama dadkaad la shaqaysa ay yihiin kuwa ku burburinaya, inta badan waxaa laga qaadaa dhibaatooyin fara badan. waxaa laga qaadaa daal maskaxeed, waxaa laga qaadaa allahuma salli calaa sayidina Muxamed
warwar baa laga qaadaa, waxaa laga qaadaa baahsanaan baa laga qaadaa, waxaa laga qaadaa haddii ayna isku dheelitirnayn noloshaada kale iyo shaqadaadu, waxaa laga qaadaa xanuuno fara badan oo jireed. qofku hadduu iskib garaynayo cuntadoo kale, hadduu iskib garaynayo in uu allahuma salli calaa sayidina maxamed uu jimicsado amba uu seexdo, hadduu intaa 24/7 shaqadaasun ku foogan yahay, habeeniya maalin uu fadhiyo, caafimaadkiisay ka go-an tahay, dheefshiidka jirkiisay ka go-an tahay, allahuma salli calaa maxamed waxay ka go-an tahay caafimaadka dhimirkiisay ka go-an tahay. hadduu qofku siraho risuquun doon oo meeshuu ka doonayaa ayna ahayn meel caafimaad qabto, dad caafimaad qaba ay joogaan oo qayb ka ah horumarkiisa iyo waxaweyaan badqabkiisa, waa taalidigeeda ayaa ku dhacaya, dhibaatooyin fara badan baa ku dhacaya. laga yaabo waxay dhahaan inta badan ay adeegsadaan, haddii aad jirkaaga u doori weydo xilli uu nasto, isagaa kuu doori doona xilli aad khasab ku nasato. markaad xanuunsato dee khasab waad u jiifsanaysaa. burnoutku waa qofku markuu shaqada isku ilaawo. alcoholic baad maqashaa, dadka markay khamriga aad u cabaan, dad baad noqdaa waxa la yidhaaho alcoholic, yacni waxay addicted ku noqdaan ama balwadu noqoto shaqo uun, lidaraja maskaxdoodii ay degi weydo oo nasan weydo oo ay neefsan kari waayaan, oo ay seexan kari waayaan, oo ay xasili kari waayaan, oo hurdaduba waxa weeyaan marka dambe ay ka guurto. haddaba sababaha ay xuduudaha aad samaysanayso goobta shaqadaadu ay muhiimka u yihiin waxa weeyaan in ay kaa badbaadin karaan burnoutkaas, inay kaa badbaadin karaan daal maskaxeed inaad qaadid, inay kaa badbaadin karaan inaad dareentid in lagu adeegsaday ajar iyo abaal la-aan, inay kaa badbaadin karaan in ay baylahaan sirahaaga qofeed, inaad dareentid si khaldan lagaaga faa'iidaystay kaa badbaadin karaan. waxay kaa badbaadin karaan caadhada ka dhalan karta culays aad isa saartay ama lagu saaray cidina aanay kuu ogeyn ama ajar aan lagaa siinin. waxay kaa badbaadin kartaa cuqdada aad ka qaadi kartid dhaqamada dadka aad la shaqayso ama u shaqayso. waxay kaa badbaadin kartaa nasiina la-aanta aad ka qaadi kartid qabashada howlo aad qabanayso xilliyo aan ahayn xilligii shaqada. isweydiina markaa sidee loo samaystaa xuduudo shaqeed oo caafimaad qaba. talaabada koobaad waxa weeyaan horta inaad qeexdid, inay kuu qeexnaato oo ay kuu qallaato doorka iyo waajibka ay shaqadaasi kugu leedahay ama lagaa doonaya inaad shaqadaa qabatid. shirkad baad ka shaqaysaa tusaale ahaan, haddaanad self-employed aha inaad adigu isu shaqaynin, xataa markaad adigu isu shaqayso naftaadii gudahaaga, markaad xasal leedahay, yani waxaa la yidhaaho side business markaad leedahay, waa in laftarkaagu xuduudo adiga iyo naftaada ay idin dhexeen, because adigii baa isu boosa. markaa waa shay talaabada koowaad waxa weyn horta inay kuu qeexan tahay oo kuu qalan tahay doorkaagu, waajibkaagu, yacni shaqadaadu maxaa lagaga baahaya inaad qabatid, maxay ayaa lagaga baahaya inaad qabatid, maxaa lagaa filayaa. maxay taasi kaa caawinaysaa? qeexitaankaasi wuxuu kaa caawinayaa inaad xuduudahaaga ilaalisid oo aanad dusha iska saarin shaqo aanad adigu lahayn. haddaad HR-ka ka shaqaysid ama human resourceska, qaban maysid shaqadii cid kale ay qabanaysay, qaban maysid shaqadii allahuma salli calaa maxamed qofka booska ay kaa sarreeya u ahayd inay qabanayo, qaban maysid shaqadii qofka shaaha sameeya buildingkiina maqaaxida ku haystaa uu qaban lahaa oo dadkao dhan adigu shaaha uma soo samaynaysid. shaqadaadii baad garanaysaa, shaqadaadii baad qabanaysaa, waddo aad raacdo ayaad garanaysaa si aad shaqadaa sida ugu quruxda badan u dhammaystirtid. marka waxay kaa ilaalinaysaa inaad dusha iska saartid shaqo aanad lahayn ama aan adiga lagu dirin, iyo inaanad ka gaabintii aad adigu lahayd. waa talaabada koowaad. arrinka labaad waxa weeyaan inaad kala baratid haa iyo maya. goormaad haa odhanaysaa, maxaad haa ku odhanaysaa? goormaad maya odhanaysaa, maxaad maya ku odhanaysaa? shaqo kasta oo goobta shaqadaada ka socota ogow ma wada qaban karaysid adigu. cid kasta oo si yar kuugu timaada ama kuugu soo dusta, garasho ay ku garanayso maad garanaysid iyaga, uma shaqayn kartid. mar kasta oo aad hawl aan qorshaha kuugu jirin qabatid, waa mar kasta oo waqtigaagu cidhiidhi kaa noqdo ama uu ka soo gaabto qabashada hawlihii aad u xil saarnayd. tusaale, waxaad soo gashay shaqada kasoo qaad 8 subaxnimo, waxaa lagaaga rabaa inaad dhamaysid shaqada 5 galabnimo ama 9 to 5 bay yidhaahaan, 9 ilaa 5.
haddii aad joogtid meelo ka duwan 9 to 5 kana 8aad soo galaysaa ama 7aad soo galaysaa mararka qaar 12 duurnimaad dhamaynaysaa ama 2aad dhamaynaysaa saacadaha koobani waxay qaadayaan saacadaha gudahooda aad qaban kartaa way kooban yihiin 1 2 3 4 xilli aad qadinaysaa jirta xilli aad tukanaysaa jirta xilli break aad qaadanaysaa jirta kasoo qaad haddii shaqadii qorshihii aad ahayd inaad shaqada maanta ku qabato oo cid kale ku timaado heblaayo walaalo aad garanaysaa adigu bay waji garanaya shaqada ayaga qabo please isu kaa bihiyo aad shaqadii qofka kale aad qabatid taadiina ay ku dayacan tahay taadii baa baylahaysa markaa haddii aad isku qaadid oo istiraahid cid walba meeshooda aad buuxisidna waxaad ogaataa inaanad cid walba meeshooda buuxin karaynin sababtaasi muhiim u tahay horta inay kuu qeexan tahay waxa doorka iyo waajibka adiga ku saaranay tahay inaad ka soo baxdid maalinta saacada daqiiqada iyo sekonka aad joogtid markasta oo waqtigaagii uu sii dheeraado talahan qof kale shaqadiisii qabat shaqadaadiiba weli ku taala 2 saacadood ama 3 saacadood qofka kale shaqadiisii gelisay ayaa adiga ka go'an which means marka laga dareero xafiiska 2 iyo 3 saacadood dambe ayaad adigu sii joogaysaa by the time aad gurigaagii tagtid adoo daalan baad tagaysaa waxa laga yaabaa shaqadaadii xataa dhowrkaa saac inay kugu dhamaystirmi weydood ku khasbanaato caawan inaad soo jeedid adoo shaqadii qabanaya subaxii dambe adigoo daalan aad shaqadii timaadid adoo daalan markaad shaqadii timaadidna waxa weeyaan in shaqadii maalintaa kuu taalay aanad u haynin energy iyo focus kugu filan oo aad ku qaban kartid because shaqadii shalay baad ku daashay haddaad gurigaaga timaadid adoo shaqo xambaarsan oo jiidanaya oo maanta aanad shaqadii soo dhammaynin waxay si taban ama negative ah u saameynaysaa xidhiidhadii faamilkaaga aad la lahayd sababtoo xilligaad waqti la qaadan lahayd ehelkaaga waa adiga shaqaynaya saameyntan negativeka ama tabani waxay dhalinaysaa stress iyo culays maskaxeed oo kale oo idinka dhex dhalanaya adigii ehelkaagii dhexdoodii habeenii maalin waad shaqaynaysaa nooma jeedid waqtiba nooma helaysid habeenii maalin laptop baad ku foorataa marka meesha maxaa soo galaya gaab baa soo galaya dadkii qofkii lamaanahaaga ama ilmahaagii wuxuu dareemayaa ama waalidkaaga wuxuu dareemayaa inaanad wax waqtiya siinahaynin haba yaraatee shaqadii markaad berri ku laabatid xalay adigana waad daalan tahay kalgacal iyo wanaag iyo wada sheekaysi iyo waqti quality lahood tayale lamaad qaadan ehelkaagii maantay saameynaysaa shaqadii shalay ayaa maanta saameysay maanta berri bay saameynaysaa berri saa dambe saameynaysaa saa dambena ta kale saameynaysaa marka mar walba waxaa iska dultegaya oo iska dultegaya shaqooyinkii allahumma salli calaa sayidina Muhammad ay keeneen xuduud la-aantan aad ku qabatay shaqo qof kale lahaa gaabkii halkaa ka dhashay ayaa shaqooyinkaagii ay isu dulfuuleen waxaasoo stressina halkaasay ka yimaadeen marka waad arkaysaa muhiimadda ay leedahay inaad maya tiraahid xilliga ay habboon tahay inaad maya tiraahid haddaba aad isweydiinaysaa waxaa laga yaabaa inaan isweydiinayno sidee ayaan maya u idhaahdaa anigoon dadka ila shaqaynayo ama kuwan la shaqaynayo aanan i colaadsanin oo aanay arkin maaragta qof dee mayadiisu ay badan tahay ama sawir khaldan aanay iga qaadan waa haddii aad aada u ilaalinaysid maaragta sawirka ay dadku kaa haystaan haddii ay kugu adagtay inaad maya tiraahid weliba aad maya tiraahid adoodan u baahnayn inaad sii sharaxdid mayadaada intaad la qabsanaysid wax walbaaba waxay u baahan yihiin la qabsi waa inaad sababaysaa mayadaada intaad la qabsanaysid watraha intana hawlood baa maanta ii yaala ma qaban karo hawshan fadlan iga raali ahow intaad la qabsanaysa carabkaaga uu mayada la qabsanayo waa talaabada koowaad aad maya ku odhan kartid talabaad waxa weeyaan waxaa jira waxa la yidhaha schedule ama waqti aad u qoondaysay inaad hawl xafiiskaaga ah aad ku qabatid dad baa kula shaqaynaya ama tiim baa kula shaqaynaya la wadaag tiimkaaga schedulekaaga maxay taasi kaa caawinaysaa waxay kaa caawinaysaa ogaanshaha ay ogyihiin schedulekaaga wuxuu kaa caawinayaa inaanay iska malaysan inaad free tahay oo aanay kugula soo dhiiran ama kugula soo degdegin dalabka hawlay rabaan inan loo qabto ama aad u qabatid arrinka saddexaad waxa weeyaan marka aad xilliyada aad hawl qabanaysid
qof walbaaba wuxuu u baahan yahay space iyo environment uu hawl ku qabto ogeysi dadka kale hawshaasaan qabanaya saacadda iyo saacadda inta u dhaxaysa fadlan cidina yaan disturb garayn ama aanay qashqashaadin dadka qaar waxaa laga yaabaa inaanu hadalkaad u sheegaysa schedule-kii shalay aad la wadaagtay inaanu maskaxdooda kusoo jirno iyagoo dafdaflaay kusoo galaan marka mar walba inaad codeer ku tiraahid hawshaasaan qabanaya saacaddaas iyo saacaddaasuma diyaarihiin lay qashqasho fadlan yaan lay qashqashin marka communicationkaagu waa muhiim wax fara badan buu kuu safe garaynaya oo tamar ah wax badan buu kuu safe garaynaya oo waxa weeyaan allahumma salli calaa muxamed uu kaa ilaalinaya in hawl cid kale ay leedahay lagugula soo duldhaco arrinka afraad waxa weeyaan waxaa laga yaabaa mararka qaar qofka hawsha kuu diraya ama ku weydiisanaya hebelo favorka ay samee heblaay favorka ay samee kulehi inuu qofka kaa sarreeya ama aad u shaqayso yahay markastoo qofku uu kaa sarreeyo ama aad u shaqaysid waxaa jira wax la yidhaaho power dynamica waxa weeyaan hamrashaa jirta mar walba waxaa sorasa waa qofkii kaa sarreeyay ixtiraaman lah qofkii shirkadda lahaa sawir qurux badan ha kaa qaatee waad kalifaysaa baa laga yaabaa waad kalifaysaa marka naftu waxay kugu siraysaa inaanad may odhan karaynin waxa weeyaan aad dul saarta qabashada hawl aanad awoodiyo waqti toonna wahayn sideen haddaba maya ugu yidhaahaa qofka iga sarreeya bikul ixtiraam yani anigoon ixtiraamkii ka tegaynin iyo qadarintii aan qadarinayay inuu qofkii iga sarreeyey ama aan u shaqaynayay u yahay talaabada koowaad waxa weeyaan horta in aad tustid hawl baad u haysaa meesha waad shaqaynaysaa iskama fadhididaad waa inaad tustid hawsha aad qabanaysaa baaxadda ay leedahay oo tiraahidha hawshan baan ayaan ku fooganahay imaka tanaa priority ii ah awlawiyad ii ah iyadaa marka iigu horeysa hawlahaan rabo inaan qabto haddaan iyada dayaco priority listkayga haddaan ka saaro tanaad imikay diraysa haan qabto dee waxaa inaga kala dhantaalmaya hawshii aynu qabanayna marka iyo golow in hawshii hore aad ii dirtay ahayd inaan qabto xilliga aan ku dhammeeyo in aan dib u dhigan karo hadhow toolaan wax su-aaligayga soo noqon karin si aan tan imaka u qabto marka 2 jeer buu fikirayaa qofkii hadday hawshaad haysaa muhiim tahay kuguma kalifi hayan haddaba ku qashqashi buu kuleeyahay hebel ama heblaaya ayaan u diraya maxaad samaysay adigii bikul ixtiraam ayaad qofkii ula hadashay waxaad kaloo pressure saartay labada hawlood inaan la isbarbar ordisiinin taasi waxay kaa rogaysaa adiga culayskii labadii culays ee ku dul fooli lahaa dadka qaar waxay sameeyaan oo dhibaato weyn ku hayeen yidhahaan bal iska dhig hadhow baan eegi doonaaye ballan qaadaan deetana qofkii uu halkan faylashii kaaga soo buuxiyo ama hawl uu kuu dirayo kuusoo buuxiyo hebel waadan arrinkaa kugu hadlayay deetana aad hadhow waqti u weydo deetana hadhow halkaa stress kale kaaga imaado ha ballan qaadin wax aanad qaban karaynin ha odhan waan qaban karaya iska dhig hadhow baan qaban doonaa aanad hubin ha qaadanin haddaanad mas-uuliyadda hadhow inaad qabanaysid aanad ogeyn markiiba cudur daaro waxaanad qaban karin waxaad tiraha ma qaban karayo ama labadan hawlood iskuma hayn karayo ama haddii la rabo tan inaan qabto tan dib ha loo dhigo wax su-aalayaan laga weydiin ilaa aan tan dhammaynayo haddii la rabo hawshan inaan u soo saaro sida ugu tayada qurux badan leh ha lay ogolaado in aan waqtigeedii siiyo oo wax kale yaanan ku mashquulin mar walba muhiimadaada iyo prioritigaaga iyo awlawiyadaadu waa in aad culayska naftaada ka yarayso stresska aad iska yarayso haddii intaaba qofkaasi uu ku qanci waayo waxaa laga yaabaa asxaabtaada ama dadka kale tiimkaad og tahay qof aan shaqo faraha ku haynin u tilmaam si indirectia hawshan anigu hawshaas ama projectkaasaan qabanaya hebel ama heblaayaan laga yaabaa inay hawshan igaga haboon yihiin ama laga yaabaa inay fursadtayda ka ballaaran ay hayaane ayaga ha lagu eego bikul ixtiraam garo oo adigii cilaaqadii qofkan idinka dhexeeyay meesha maad qashqashin adigiina culays ismaad saarin marka mar walba inaad qof smarta aad ahaatid oo culayska naftiisa ka ilaaliya dabeecadaha kaa ilaalin kara been outku inuu kugu dhaco ama allahuma salli calaa maxamed xuduudahaaga shaqeed in dadku ay kasoo tallaabaan ama adiguba aad ka tallaabtid waxaa ka mid ah inaad kusii nagaatid xafiiska iyadoo ay dhammaadeen saacadihii shaqadu waxaa kusii nagaanin adigana dabeecad xun bay kaa noqonaysaa dadkuna waxaa hadhow baad ka dhammayn doontaa xafiiska furihiisi baad haysataa hawshanna iga dhammee baa lagu odhanaya marka ha ku nagaanin xafiiska iyadoo xilligii shaqadu uu dhammaaday waxay ku abuuraysaa taasi waxay ku abuuraysaa routine bay ku abuuraysaa the more routine haysato the better dadku kuguma soo degdegayaan hebel shaqadiisi xilligaa uu dhameeyay ama heblaayo way dhammaysay qofkii dib uu kaaga istaagaya laakiin haddaad tahay qof too flexible dhinacii loo jiidaba u raacaya culays baa lagu saarayaa adigiina waad dumaysaa
haddii maxaan sameeyaa waxaan xafiiska ugu hadhaa aad leedahay tusaale ahaan shaqooyinkayga iska dul tegay jadwal yar baad samaysan jadwalkaas waxaad soo kala horraysiinaysaa shaqooyinkii maxaa muhiima maxaan muhiim ahayn maxaa laga maarmi karaa maxaa agenda maxaan beritoo la qaban karaa maxaan maskaxda iyo maanka u soo sii karaa oo yani aan usoo nasan karaa si aan u qabto anigoon xafiiska dib ugu hadhin wixii maanta baaqi noqday misena aan emergency ahayn xafiiska kaale wixii maanta baaqi noqday aan emergency ahayn laakiin loo baahan yahay library in la dhameeyo usoo shidaal qaado shidaal maskaxeed qaado shidaal dareemeed qaado helkaaga iyo dadkaad jeceshay waqti la soo qaado shidaal jireed qaado inaad soo seexato inaad jimicsatid inaad nafistid ka bacdina beritoole usoo noqo waxyaabaha kale kaa caawin kara inaad ilaalisid xuduudo shaqeedkaaga waxaa ka mid a inaad xilliyada breegaaga ixtiraamtid waxaa laga yaabaa 3 breeg inaad u baxdid ama 2 breeg inaad u baxdid xilligaad cunto cunaysid breeg kale waxaa laga yaabaa allahumma salli calaa muxamed aad tukanaysid breegyadaada ixtiraam xilliyada breegaagii ay tahay shaqo ha isku taarin adoo iska dhigay inaad qof cajiiba tahay ama howlkaraha tahay marka la arko inaad breegaaga ixtiraamayso dadka kalena way kula ixtiraamayaan waxaad sideedaba ogaataa markastood adigu ixtiraamtid waxa qiimaha kule waa markastoo dadka kalena ay qiimeeyaan waxaa laga yaabaa xilliyaad fasax qaadatay ama aad ka tagtay xafiiska in email laguu soo diro telefoon lagaa soo diro hebelo waxaa qabo heblaayo waxaa qabo haddii aan la ogeyn ama aanad communicate garayninoo dadka aanad u sheegin xilliyada aad ofka tahay inaanad shaqaynin weligoodba way kugu soo qulqulinayaan email ha laguu soo diro telefoon ha laguu soo diro waxaan ha lagaa dalbado waxaan ha laguu diro marka waa in warkaagu cadiyahoo tiraha markaan xafiiska xilligaa ka baxo ilaa iyo xilligaa anigu emailadeeda ma eego telefoonadeedana ma qabto mana shaqeeyo nafteydana ma geliyo wax shaqo la wax khuseeyo shaqo markaa fadlan sidaa u ogaada qofkii uu ogyahay kugu soo lugo-i maayo email laguu soo diri maayo kool laguu soo diri maayo heblaayo carar lagu odhan maayo hebeloo cararna lagu odhan maayo because they know wixii emergency-a ee aad isla qaadataan waqti aad ka jawaabto ha jiraan waa haddii laga maarmi waayo haddii ay jiraanna waqtigaasi waa inuu dadka kale wacadiya dadka kula shaqeynaya projectka kula wada waa inuu cadyahay 12 ilaa 1 ayaan ka jawaabaa 8 ilaa 7 7 ilaa 8 6 5 ilaa 6 yani warkaagu inuu cadaada markastoo warkaagu cadiya waa markastoo xuduudahaagu ay xoogan yihiin waa markasta oo ay xuduudahaagu xoogan yihiin breeg inaad breegyadaada aad ixtiraamtid waxay ka caawinaysaa in aad burn outkii xataa haddaad maalinta aad u shaqaynaysay inaad heshid waqti aad tamartaada waxa weeyaan ku cusboonaysisid ama wax cab ama wax cun ama iskala bixi ama soo yar soco hawa soo qaado waxay focuskaaga iyo diiradaada ayay caawinaysaa dadyowga jooga wadamada aanan islaamka ahayn inta badan waxyaabaha aadka qofku ugu dhibaatoodo ama ugu kadeedmo waxaa ka mid ah hadduuna aqoonin waxa la yidhaaho xuquuqdiisa diineed ingiriiska oo kale waxaa jira waxa la yidhaaho xuquuqo diimeed baa jira oo waxay soo hoos galaan sharciyo ay dhigtaan iyaku sharciyadaasi waxaa lagu dabaqaa goobaha shaqada iyaga laftigooda ingiriiska oo kale waxaa ka mid a waxa la yidhaaho the Equality Act 2010 sharcigaasi wuxuu ilaaliyaa qofka xuquuqdiisa wuxuu ka ilaaliyaa in la discriminate gareeyo oo waxa weeyaan lagu xadgudbo qofkii waxaa ka mid a xuquuqaha qofka kuwiisa jidheed kuwa genderka ama jinsiga uu yahay diinta uu haysto okay qof muslimaan ahay shirkad weyn baan ka shaqaynayaa marka ugu horeysa ee aad allahumma salli calaa muxamed kontraaga shirkaddaa shaqaynaysid adigana waxbaa lagaa filanaya adiguna waxbaad ka filaysaa xilligaa codsigaaga waa la maqlayaa codsiga dadkana waad maqlaysaa waa inaad warkaagu cadaadaa maaha shaqo keliya xataad college dhiganaysid haddaad jaamacad dhiganaysid haddaad whatever yacni meel institution haddaad joogtid waa in warkaagu cadaadaa tira anigu qof muslinaan ahay
especially markaad shaqaynayso sidoo kale qof muslim aan ahay 5 jeer baan maalintii tukadaa waxaa laga yaabaa salaada duhur iyo salaada casar inaad shaqada ku jirtid mararkay winterka tahay ama qaboobaha tahay inaad ilaa salaada maqrib joogtid marka in qofka ku shaqaalaysiinay aad u cadaysaa anigu waan tukadaa ma haysataa meelan ku tukado intaasoo jeer baan tukadaa salaad kasta waxay iga baahan tahay 5 ama 6 daqiiqo in aan ku tukado ma jirtaa meel aan ku tukan karo oo quiet oo degan oo dadku aanay marmaraynin ma wargelin kartaa dadka ila shaqeeyo dhan xilligaas iyo xilligan tukanayo aan u baahnayn in la qashqasho waxaan u baahanahay sometimes inaan weyse qaato ma leedihiin meel aan ku weyse qaato hadday ku dhahan maya ma ku tala jirtaan inaad samaysaan ayaa la yidhaahaa inta badan yani ma maqashay waxa la yidhaaho niman hadin hooyadii wax ma siiso koolejyada jaamacadaha goobaha shaqada muslimku ku badan yihiin qof kasta oo shirkad haysto oo loo shaqeeyaa wuxuu ku khasban yahay mid macangaga ma sheegin oo dee aanay cid ka codsatana waaye laakiin waxay inta badan accommodate garayaan ama ay yani si ay shaqadoodu ay tayo u yeelato oo dadka u shaqaynaya ay u dareemaan inay dad freedom iyo xuriyad haysta ay yihiin inta badan waa laga helaa meelahaas hataa dhakhaatiirta ay ku taalaa oo dadka dhakhaatiirta ah iyo nerseska iyo kuwa ka shaqeeyaba ay ku tukadaan wax caama bay noqotay imika markaad tusaalaha hadaad dal ku cusub tahay ama shaqadaad ku cusub tahay muhiimadu hamoodi inuu qofku iska kaa fahmayo intaad shaqo gashaadoon cidna waxba u sheegin iyadoo shaqadii bartanka laga jiro iskaga bax halkaad ku socotaa it's time to pray oo miyaad u sheegtay time to prayga marka waa inaad marka hore communicate karaysa oo dadkaanaad u sheegta waxa muhiimka ku ah anigu qof muslimaan ahay waan tukadaa xilligaa iyo xilligaasan tukadaa intaasoo daqiiqo ayaan u baahanahay saacadda markay intaa tahay saacadda kale markay intaa tahay saacadda kale markay intaa tahay if they respect it way ixtiraamayaan if they don't dee ra'yigaagaad bedeli shaqo kalaad dooran si kalubaad u maarin umuurahaaga laakiin wax aanad cidna weydiin communicate garayn xuduud aanad adigu cadaynin ha ugu dudin in dadka kale ay ixtiraamaan because maba ogaba markastoo dadka weydiisato aad ka hadasho aad ixtiraamto xiliyaha salaadaada waa markastoo ay dadkuna ixtiraamaan ugu dambayn waxyaabaha kaa caawinaya in xuduudahaagu ay kuwa adag noqdaan oo la ixtiraamo oo lagula qaato oo adigana stresskaaga iyo walwalkaaga iyo waxa weeyaan adduunka gudahaagu inuu xasilooni darro dareemo ka ilaalin waxa kamid ah inaad ogaatid horta meeshan shaqadu inaanay ahayn guri aad adigu leedahay dadkan kula shaqeeyaa inaanay ahayn ubadaad adigu dhashay inaanay ahayn walaalkaa kula dhashay inaanay ahayn qofkaad wada nooleydeen waxaa jira waxyaabo sharaftaada iyo qofnimadaada iyo ahaanshiyahaaga ilaalinaya oo dadkuna kugu ixtiraamayaan adiguna waxa weeyaan nabadaada gudeed iyo salaamkaaga ku ilaashamayo waxaa kamid ah in dhibaatooyinkaaga qofeed kuwa xidhiidheed kuwa ehel kuwa dhaqaale wixii adiga kuu khaasa inaanad layma goobta shaqadaada oo marka shaqada timaado maanta habartay baan soo dirnay dadii baan ismaagnay ninkaygu waa nin xun gabadheedu waa mid sidan ilmahayga sidan businesskaaga inaanad meesha shaqadaada layman because aday ku xun tahay waxa lagu arkayaa qof kala daasanidaa tahay waa lagugu abuusayaa xogaha qaarad laga yaabo inaad bixisid arrinka labaad waxa weeyaan in dayn haddii lagugu leeyahay haddii aad tahay qof musrif ah oo lacagta daadinog aad tahay haddii aad tahay qof iska baahan oo cidina aanay garab siinin haddii dhibaatooyin dhaqaale ay ku haystaan inaad shaqada markaad joogto ka sheekaysid oo cid walba aad la wadaagtid maha wax haboon sababta waxa weeyaan in horta lagu arkayo qof desperate ah oo shaqadan u baahan oo cid kasta ay kuga xadgudbi karto including qofka xataa aad u shaqayso haddii inta dhibaata kaaga dhacdo shaqadaada aad cabatidoo tiraha dhibaatadaas ay haysata qof aan markiiba loo helinin oo dadka kale loo odhan dhibaatada qofka ku haysan maxay tahay qof yani laysiraaho mar walba maaragtay shaqadan baahi weyn baa u haystay sidii la doono ayaa loogu joogsan karaa ayaa laga yaabaa sawir noocaas inay dadka qaar ay kaa qaataan waxyaabaha kale ay muhiim tahay in laga taxadaro ama inaad ka taxadartid waa haddii aad rabtid in xuduudahaaga shaqeed la ilaaliyo lagu ixtiraamo waxa weeya wax la yidhaaho
xamashada haddaad dadka aadka u carabka dheeraa tahay oo wax xamatid oo qofka managerka aad xamatid oo kakaa sarreeya aad xamatid oo kukula fadhiya aad xamatid oo hebelkana aad xamatid meeshii waxay noqonaysaa awal shay horta xantu xaaraan waan ognahay laakiin bilakhas markaad shaqaynaysid waxaa loogu arkayaa inaad tahay qof maaragtay toxica waxaa fududaanaysa in dadkii kale aad iska hor timaadaan waxaad fududaanaysa in adigii lagu xanto meeshii shaqadaadu ay meel jaxiima isu bedesho waxa weeye qof walbaaba qofka kale uu iska eegayo markaa qayb ha ka noqonin xamashada dadka kale adigoo qof ka dhaweysanaya shaqada waxaad u timaadaa inaad shaqaysatid dadkan xidhiidhada aad la leedahay waa xidhiidho formal ah maha xidhiidho maxaa la dhahayay romantic ah maha qof inaad qof ka jeclaatid qof inaad ka dhaweysatid qof inaad la xamatid waa very toxic waa waxaan caafimaad ku jirin waxaa la yidhaaho dareenka kalgacal xidhiidhada dadka idinka dhexeeya waa xidhiidho formal ah waa xidhiidho shaqeed waa zamaala ma aha xidhiidho jacayl iyo kalgacayl iyo hebel baa isoo eegay iyo heblaaya isoo eegtay iyo talomeyga helaysay iyo gabadhaa dheer aan usoo xidho deetana maalintii oo dhan aad meeshaa ku kadeedantid ood socon kari weydid ama roobkiisoo da aad ku koftid simply because qof baad doonaysaa inaad impress garaysid goobta shaqadaadu waa goobta shaqadaada ma aha goobtii aad businesskaaga iyo hawshaada iyo daraamada ehelkaaga iyo cidaad ismaagteen iyo ninkii ku furay iyo gabadhaad furtay iyo meeshaad safartay iyo waxaad haysato iyo sodohdaad ku kacsantihiin inaad kaga sheekaysid maaha professionalna maaha wax formalana maaha wax adiga kuu adeegaya iyo sawirkaagana maaha haddii aad doonaysid inaad shaqada ka tagtid tusaale ahaan oo laga yaabo for some reason inaanad satisfied ku ahayn ama aanad aada ugu qanacsanayn ma aha muhiim waxay ku taliyaan dadka khubarada ahi in aanad ka sheekaynin oo waxaan rabaa inaan xilligaa ka tago xoogaa yaro lacagaabaan kaydsanayaa anba urursanayaa meeshana walba ma joogo waxaan u joogaa un maaragtay inaan intaa iska gaarsiiyo hagbaddaa iska xidho wax professionala ma aha haddaad doonayso shaqada inaad ka tagtid exit strategigaadu inaanu ahaan mid dadkao dhan ay wada og yihiin maaha taa micnaheedu inaanad dadka markaad resign garaynaysid aanad waqti siinin ay shaqaale kaloo ku bedela ay ku raadsadaan taasi adiga iyo booskaaga ayay idiin dhaxaysaa laakiin xataa taa laftarkeeda waa inaad gobonimo samaysaa oo waxaa iyagoo meel ku yaalaan cagbadaha iyo waxaagii aad waxa weeyaan aad samaysanaysid haddana maaha khasab inaad cid kasta ogeysiisid ilaa albaabkaad kasoo gashid ood maalin walba tiraahid meeshan waan iskaga tegayaa dhowr waxa weeyaan howloodunbaa iga xidhxidhan waxasrey karada aad iskaga bixisid no ma qurux badna adiga sawirkii kaa bixinaysaana ma fiicno mana noqonaysid qof la ixtiraamo ama xuduudihiisa la ilaaliyo allahuma salli calaa sayidina maxamed haddii ay jiraan waxyaaba aanad ku qanacsanayn ama dareemo aad ka qabtid in aanad xirfadaha shaqadani ay keensanayso ama ay rabto qaarkood inaanad lahayn waxaa inta badan quman inaanad cidna la wadaagin xirfadu waa wax la barto waa wax la horumariyo waa wax la kasbado laakiin haddii aad adigu ka dhigtid col hortii jabay oo tiraahid waxaa kuma fiicin waxa ma aqaan wallahi maba aqaan excelka saa loo adeegsado maba aqaan waxan waan iska fadhiyaa meeshan way fududahay in si yacni fudud allahumma salli ala maxamed lagu garbiyo ama meesha lagaaga saarto ama dacayad lagaaga faafiyo ama markiiba cid ku replace garayso oo shaqadii lasoo geliyo haddii allahuma salli calaa sayidina maxamed ay jiraan waxaa laga yaabaa dad fara badan inaad la shaqaysid kuwa yahuudi inaad la shaqaysid inaad christian la shaqaysid inaad dad diinlawayaala la shaqaysid inaad nooc walba la shaqaysid maadaamaad xukumi karaynin adigu caqaa'idu dadku leeyihiin ixtiraamku waa shay muhiima haddaad tiraahid yahuudda waa nacbahay kan waa nacbahay keer waa nacbahay kan waa in la dilaa kan waa sida dhadhadhadha dhibaato badan baad isu keensanaysaa oo adigana naftaadii aad u keensanaysaa dadkii kula shaqaynayna aad u keensanaysaa marka waxyaabo fara badan baa caawiya qofku inuu lahaado xuduudo caafimaad qaba oo isna uu ilaaliyo dadka kalena ayuu ilaaliyaan aad baad mahadsantihiin salaam